arrintaas waa arrin been abuura laakiin waxa Facebook la soo dhigay waxa anaga iga yimi maaha anigu haddaan musharaxayo bulla musharax waahay dee xilligii musharaxnimada lama gaarin oo teem dheer baan ka harsano wasiir dowladeed baan ahayo shaqada dowladda haya haddaan issharaxayana Facebook isma soo dhigeene idaacadaha iyo telefishinada iyo waxaan u yeeri lahaa iyo warbaahinta ayaan u yeeri lahaa fikirkaygana ka caddayn lahaa waxaan qabo laakiin arrintaa Facebook la soo dhigay dadka commentiga ka bixiyay iyo dadka soo dhigay iyo cid kastoo ka hadashay waan mahadcelinayaa qof walbaba dee fikirkiisu ka hadlay kan aniga Facebook aan been abuurkaa soo dhigay dee fikirkiisu ka hadlay waxbuu ila jeclaa baan u malaynayaa dadka commentiga ka bixiya fikradaha kala gedisan ka kala bixiyana cid walba kii negative kaga jawaabay iyo kii positive kaga jawaabayna waan soo dhawaynayaa cid walba laakiin arrintaa waxaan caddaynayaa inay tahay arrin been abuura oo aniga aan iga soo bixin oo maxaan kuu sheegay lagu been abuurtay baan gaarsiinayaa dadweynaha reer Puntland iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeedba arrintaasu waayahay mudane wasiir waxaan filayaa inaad isticmaashid adiga baraha bulshada arrintaa markii aragtay ama lagu wargeliyay maxaa uga jawaabtay arrintaas waxaan uga jawaabay arrintaa dee inay aniga iga soo bixin inay tahay arrin been abuura inay tahay ayaan baraha meelahan hadalka gaarsiin kara aan uga jawaabaya waaya marka laga yimaado magacaaga oo dadweyne kale ay soo dhigeen Facebook oo been abuura ma la oran karaa marka Cabdi Xirsi Qarjab Facebook oo isticmaalaa waanu dadka Facebook aad u isticmaala maahay kuma mashquulaan Facebook maartay dadka ku mashquulaan waqtiga badan geliya maahay anigu